بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتنا خيارتها وذا إنك دقيسانيساي وهبينمو قميصة جمعاء سوق ليسو تاريخنا يكون بيغان تايشانتا بالشا سدحاد لبكون يلاباتانكا قضبادا وركا هبينمو الراديو مركب لياتكو مغلي دونتانا وحا كامدا مدحوين فرماجو iyo Uhuru Kenyatta oo ka wada hadlay xiisada u dhaxaysa labada dal baarlamaanka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyay dalab kaga yimid Axmed Madoobe Ali Rooba oo ka digay ciidanka Jubbaland ee lagu ururinayo Mandera kadib Macalin Maxamuud madaxdii kale ee ahlu sunna oo faaruujiyay Dhuusamare baarlamaanka Galmudug oo maanta kulan ku yeeshay Dhuusamare حسن شيخ محمود أو شاعية سألتا أي مدشة حزبية ugu midoobeen hal xisbi madasha xisbiyada qaran oo xisbi ku midoobay soona saaray 13 qodob dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan wararka dibadda warka radio markabley caawa aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah heshiiskii ururka Taliban iyo Mareykanka oo qarka u saaran in uu burburo iyo dhaxal sugaha dalka Imaaraadka oo lagu soo waramayo in uu cudurka coronavirus ku dhacay qodobadaas iyo hadba wixii warar ah ee soo kordha ayaad ku dhageysan doontaan warka habeenimo ee radio markabley u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan oo aan idin aqriyo anigoo Yaxya Cabdirisaaq Soofe warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beerraad ma leh wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhageyso idaacadda markabley wayna ka hadaba aan ku bilowno warkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo Uhuru Kenyatta ayaa ka wada hadlay xiisada u dhaxaysa labada dal madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isla gaaray ahmiyadda ay leedahay in si wadajir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Kenyatta ayaa adkeeyay in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfahan darro labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u wada fariistaan guddiyo ka socda Soomaaliya iyo Kenya kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dad iyo dal ka dhaxeeya muddooyinkii dambe ayay ahayd markii madaxda Soomaaliya iyo Kenya ay isku jeedinayeen eedeymo la xiriira in midba midka kale uu ciidamo keenay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya dhanka kaleetana baarlamaanka Jubbaland ayaa muddo kordhin u sameeyay dalab kaga yimid Axmed Madoobe baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ee lagu muransan yahay ayaa cod aqlabiyad ah ugu codeeyay codsi ka yimid Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo ah in muddo kordhin 2 bilood ah loo siiyo madaxweynaha si uu u soo dhiso golihiisa wasiirada cusub ee Jubbaland dhammaan xildhibaanadii soo xaadiray kulanka ayaa u codeeyay in muddo kordhin la sameeyo mana jirin cid ka aamustay sidaasi darteed waxaa halkaasi lagu ansixiyay muddo kordhin uu soo codsaday madaxweynaha Jubbaland ee aan aqoonsiga ka haysanin dawladda federaalka Soomaaliya kulanka xildhibaanada kadib waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha habdhowrka baarlamaanka Jubbaland Shukri Weyrax Kaariye oo taariikhdu tahay 5 bisha 3 2020 walaha wakiilada dawlad goboleedka Jubbaland u kordhiyay muddo dhan 2 bilood oo noqon doonta muddada lagu soo dhisi doono golaha wasiirada ee dawlad goboleedka Jubbaland loo kordhiyay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland oo u soo gudbiyay golaha wakiilada codsi arintaasi khuseeya haddaba golaha baarlamaanku golaha sharci dejinta dawlad goboleedka Jubbaland markay arkeen codsiga madaxweynaha waxay qaateen arinta ayada isla markiiba fadhi baa la isugu yimid waxa fadhiistay dhammaan gudiyadii joogtada ah ee baarlamaanka waxayna si buuxda oo cod midaysan isugu raaceen
muddo kordhintaas labada bilooda oo ka bilaabanaysa 6da bisha haddii ilaahay yiraahdo iyadoo aan tixgelinayno duruufaha uu dalku ku jiro ha noqoto mid dagaal ha noqoto iyo mid dib u heshiisiinteeda iyo tixgelinteeda leh iyo duruufaha kale adaga guud ahaan Soomaaliya aan la wadaagno ayay isla qaateen xubnaha meesha ka fadhiya gudiyada joogtada oo ka wakiila xubnihii kale ee golaha maxaan ku yiraahdaa xerdejinta Jubbaland in arinta iyada la isku raaco marka barnaamijka isagii sidii la rabay oo ugu quruxda badnayd uguna deganayd buu meel maray laga bilaabo marka maanta oo ah bishu tahay 5 bisha March waxaa loo kordhiyay madaxweynaha dowladda gobolka Jubbaland mudane Axmed Sheekh Maxamed Islaam in uu kabinetka ku soo dhiso muddada 60 maalmood ee soo si kastaba xildhibaanada Jubbaland ayaa inta badan lagu eedeeyaa in marnaba aysan ka soo horjeesan karin qorshe walba oo uu soo bandhigo Axmed Madoobe علي روبا ayaa ka digay ciidanka Jubbaland ee lagu aruurinayo Mandera gudoomiyaha magaalada Mandera ee dalka Kenya Ali Roba ayaa ka digay colaad mar kale ka dhacda inta u dhaxaysa magaalooyinka Mandera iyo balad Xaawo taasi oo saameyn ku yeelatay magaalada uu gudoomiyaha ka yahay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxaa la socday muuqaal laga duubay gaadiid dagaal oo ay wataan ciidamada Jubbaland waxaana arintaasi uu sheegay in ay halis amni ku tahay magaalada Mandera ciidamada amniga ee Jubbaland ayaa wado dhaqdhaqaaqyo dhanka midig ee magaalada Mandera ee ku taala wadada Buula Jamhuuriya una dhow xarunta dhexe ee xerada oo ku taala xarunta Haduma tani waxay qatar weyn ku tahay amniga dadka reer Kenya ee ku nool Mandera ayuu yiri علي روبا waxa uu ugu baaqay madaxda dawladda Kenya inay keenaan wada hadallo xal u keeni kara in la yareeyo inay dhacdo qatar kale oo sababi karta gacan ka hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha magaalada Mandera ee dalka Kenya Ali Roba ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan inta u dhaxaysa Mandera iyo balad Xaawo ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo kuwa taabacsan wasiirka amniga Jubbaland kaasi oo saameyn ballaaran ku yeeshay magaalada Mandera هاتنا قلمذوب كدب معلل محمود مدحذي كلا أهل سنة أو فاروجي دو سمرب كدب مركي وهري مقالذا قروي وقاري هقاميها أهل سنة معلل محمود أيا وحال لقصو والرميا إنسي ذو كلا أي مانتا هالكاسي قاري مدحذي كلا كوحداسي وراركا يا شيخ يو إن شيخ محمد شاكر يو عبد السمد معلل محمود أو دليه هقاميها أهل سنة أي مانتا تغين قروي سفركا أيا وحا كويليي حلبانو كترسان بارلمانكا قلمذو أو كمد اللباتنكي حلبان كوحداسي أي هوري وقدر ستي بارلمانكا سيدا أن حكتا كوهلني وفدقا أو كيمد مقالة دو سمرب أيا حالي كسي هيدي مقالة قالكعيو هالكاسي أو إساكي سفر دولكا كقبحين كنا قارين قروي سيدا أي حقيقيين مسؤولين كترسان بوتلان وقاميها قود أهل سنة معلل محمود شيخ حسن فارح أو مالمهن كسوغنا قروي أيا الله هذا الحياة إن أوكو جهن يهي مقالة جدا سيكستبا سعودي عربية أو هدى سور ركتي حيراضو لحريرا دادك أجنبي قاه آني دالكاسي ودلان سوابو لحريرا عذرك كورونا فيروس أي سورتقل أي تهي إن أي باجيسو سعودالكي معلل محمود وقانك أورك أهل سنة أو إن كبدن لبي طبان سنضوض كتلينيي قبل لدى الدحية سوماليا أي دوان إسو ديبي دولد فدرالك سوماليا كدي مركي لوغا أتكاضي دقال هالكاسي كدح مري إيجا إيو عيدا مدى دولد
baarlamaanka galmudug ayaa maanta kulan ku yeeshay dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ayaa maanta waxaa kulan ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug kadib markii xildhibaanada lagu wargeliyay inay soo xaadiraan fadhiga baarlamaanka maamulkaasi fadhiga baarlamaanka galmudug ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal waxaana ka qayb galay inta badan xildhibaanada galmudug sidoo kale kulanka baarlamaanka galmudug ayaa maanta waxaa ku sugnaa wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo gudoomiyaha guddiga dib u eegista ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa kulankooda maanta waxa ay uga hadleen dib u eegista iyo dhameystirka lagu samaynayo dastuurka dalka wasiirka dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa baarlamaanka galmudug ka hor sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada galmudug ay ka shaqeeyaan dhameystirka dastuurka isla markaana ay talooyin badan ay ku biiriyaan maadaama waxa ugu weyn ee dalka uu ku shaqeyn karo ay tahay dastuurka dalka hay'adaha dastuurka ayaa maalmaha ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb la tashi la yeelan doono hay'adaha galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyaga oo ka dhageysan doono taladooda iyo aragtidooda ku aadan dib u eegista dastuurka qabyada xasan sheekh maxamuud ayaa shaaciyay sababta ay madasha xisbiyada ugu midoobayaan hal xisbi madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahna gudoomiyaha xisbiga UPD ayaa ka hadlay ujeedada ka dambaysa in madasha xisbiyada qaran ay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed madashu iyadoo ka ambaqaadaysa marxaladda uu dalka marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimadu xisbiyada ay ka kooban tahay madashu waxay isku raaceen in ay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray xasan sheekh maxamuud xasan sheekh oo arintaasi ka hadlaya ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku yiri mideynta xoogagga horu socodka ah ee siyaasadda Soomaaliya waxay lagama maarmaan u tahay xasiloonida iyo barwaaqada Soomaaliya go'aanka madasha xisbiyada qaran ay ku midoobayaan hal xisbi siyaasadeed waxay taariikh cusub u tahay Soomaaliya waxayna anfacaysaa jiilka hadda jira iyo kan mustaqbalka xasan sheekh ayaa dhinaca kale u digay dhinacyada shisheeye ee xiiseeya siyaasadda Soomaaliya kuwa juqraafi siyaasadeed ahaan xiiseeya Soomaaliya waa inaysan dhaawicin qulubta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aysan beerin wax mustaqbalka hurin kara dagaal aysan cidna dan ugu jirin waa in ay damqin dhaawacyada boogihii hore ayuu yiri xasan sheekh go'aankan ay madasha xisbiyada ku noqonayaan hal xisbi ayaa yimid kadib markii shir socday 5 maalmood ay ku yeesheen magaalada Ankara ee dalka Turkiga haddaba madasha xisbiyada qaran ayaa hal xisbi ku midoobaya soona saaray 13 qodob madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo ay ku midoobeen lix xisbi siyaasadeed ayaa waxa ay warmurtiyeed ay uga hadlayaan arrimo dhowr ah ka soo saareen shir muddo 5 cisho uga socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga warmurtiyeedka oo ka koobnaa 2 bog ayaa waxa ay ku sheegeen in shirkooda uga hadleen caqabadaha amni iyo midka siyaasadeed ee xilligan dalka ka jira sidii xal looga gaari lahaa kuwaasi oo wiiqi kara dawladnimada muddada la soo dhisayay warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay kadib wadatashi iyo talooyin badan inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed si arintaasi loo gaaro warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in la magacaabay guddiga farsamo oo howlahan ku soo dhameystiro muddo 45 cisho gudahood madasha xisbiyada qaran ayaa dalbaday in doorashada dalka ay ku dhaco
dhacdo waqtigii loogu talagalay oo aysan aqbali doonin waqti kororsi sidoo kale waxay dalbadeen in si shuruud la'aan ah ay iskugu imaadaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya si looga tashto doorashada iyo marxaladaha uu marayo dalka madasha xisbiyada ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin in ciidankii iyo dhaqaalihii loogu talagalay la dagaalanka al-shabaab loo adeegsado burburinta dowlad goboleedyada dalka ka jira sida ay hadalka u dhigeen waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan madal dib u heshiisiineed ugu dambeyntii madasha ayaa sheegtay inay ka tacsiyadeynayso isla markaasina ay ka xun tahay dayacay sheegtay in loo geystay ciidamada dowladda ee ku sugan gobolada Shabeellada Hoose kuwaasi oo dhawaan qasaaro xoog leh ay u geysteen kooxda al-shabaab kadib markii laga qabsaday xeradii ay ku sugnaayeen lagana qaatay gaadiid iyo saanad ciidan dagaal culus ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan dagaalkan oo geystay qasaaro kala duwan ayaa waxa uu ku dhaxmaray deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan kooxda macuusleyda iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa wararka la helayo waxa ay sheegayaan in uu yimid kadib markii ciidanka kooxda macuusley ay weerar ku qaadeen xarumo ay leeyihiin al-shabaab kuna yaala deegaanka Ceel Cali waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan 2 saacadood kaasi oo aan weli si rasmi ah loo shaacin qasaaraha ka dhashay xildhibaan Daahir Amiin Jeysow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka soo jeedo deegaanka Ceel Cali ayaa sheegay in al-shabaab iyo kooxda macuusleyda dagaalkooda uu daba socdo dagaal horay halkaasi uga dhacay oo salka ku haya dhagax dhawaan halkaasi laga helay xildhibaan Daahir Amiin Jeysow ayaa sheegay in dagaalka uu dhaawac culus ka soo gaaray nin ka mid ah nabadoonnada ugu caansan deegaanka Ceel Cali isla markaana gudaha deegaanka uu dagaalka ka dhacay waxaa hadalkiisa intaasi uu ku daray in ciidamada kooxda macuusleyda ay doonayeen in al-shabaab ka saaraan deegaanka Ceel Cali iyo deegaanada kale kuwaasi oo sheegay in la isku hayo khayraadka halkaasi dagaalamo ay nabadiidkii meesha ku habsaday intaan maqleen nabadoonna in muxuu ahaa caloosh garabta allah ayaa lii sheegay waxaan leeyahay dad baa ka dhaawacmay dhinaca nabadiidkana war uma hayo mana ogaan karo laakiin haddana dagaalka intiisa ugu badan waxaad ka socdaa waa xerooyinkoodii oo ay dad dareero mutawiciin oo macawisay ugu daateen warkii faahfaahsanna berri baan ogaanaynaa hadduu ilaahay muxuu u qoray dagaalkooda isku qabteen kooxda al-shabaab iyo macuusleyda hadda waa ogtahay niman dhulka haysta oo nabadiida iyo dadkii deegaanka oo muxuu ahay dad badan baa doonaya inay cadowga iska kaciyaan waaye dagaalka oleyskiisa wuxuu bilaabay 3 bishii Janaayo ayuu xooggiisa bilowday xilligaas oo xilligii ay ugu badan ay shabaabka keeneen Ceel Cali oo ay doonayeen inay dhagax weyn oo astaan u ahay meel deegaan ah ay qodanayeen oo dhagaxan hadda xamar lagu hayaa ayuu dagaalka xooggiisa bilowday marka ilaa ay waqtigaas oo hadda ay dhagaxi soo qaateen sidii u socday dagaalka xilligaan hadda aan joogo waxweynka ma aan ogaan karo waxaan lii sheegay in xerooyinkii ay shabaabka gabaadka ka dhiganayeen loogu daatay nin nabadoonna waa lii sheegay oo magaciisa lii xaqiijiyey muxuu ahay in uu dhaawac khatar yahay u garanayo kolley waxay ku dambayn doonta laakiin wixii faahfaahinna insha allah waaga markii uu guriyo ayaan idin siin doonaa hadduu ilaahay waa tii dhagaxa xamar lagu qabtay ma dhagax kala xaggaas yeelo oo dagaalku sabab u ahaa markuu horeysa wayaan dhagax jeernaa dagaalka uu socday hadda shabaabku waxay bilaabeen inay khayraadkii boobaan oo ay muxuu ahay ay ka iibsadaan muxuu ahay dad kale si ay awoodooda iyo hantidooda ay usii xoogaysan
dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda markabley haatanna akhbaraadka caalamka heshiiskii Mareykanka iyo kooxda Taliban oo u muuqda mid sii burburaya dowladda Mareykanka ayaa arbacadii weerarkii ugu horeeyay ku qaaday fariisin ay kooxda Taliban ku leeyihiin gudaha dalka Afghanistan kadib heshiiskii dhawaan labada dhinac ku dhaxmaray dalka Qatar arintan ayaa dhalisay in cabsi badan laga muujiyo in uu burburo heshiiskii taariikhiga ahaa ee labada dhinac ay ku kala saxiixdeen magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar afayeenka ciidamada xoogga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in duqeynta ay ka dhacday koonfurta gobolka Helmand saacado kadib markii ay qadka telefoonka ku wada sheekaysteen madaxweyne Trump iyo madaxa wada xaajoodiyada u qaabilsan ururka Taliban wada sheekaysigaasi ayaa ahaa kii ugu horeeyay oo dhaxmara hogaamiye Mareykan ah iyo sargaal sare oo ka tirsan ururka Taliban afayeenka ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in kastoo ay nabadda doorbidayaan haddana in aysan ka aamusi doonin weerar lagu qaado ciidamada dowladda Afghanistan ugu dambeyntiina dhaxal sugaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed oo la sheegay in uu ku dhacay coronavirus dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed ayaa lagu waramayaa in uu ku dhacay cudurka coronavirus sida uu qoray wargeyska Daily Sabah ee Turkiga oo soo xiganaya warbaahinta Israa'iil sida uu qoray Daily Sabah warbaahinta N12 ee Israa'iil ayaa soo saartay in bin Zayed uu cudurka ka qaaday qof u dhashay dalka Philippines oo adeega ka ah madaxtooyada Imaaraadka Carabta lama yaqaano sida qofka shaqaalaha uu cudurka ku gaarsiiyay Mohammed bin Zayed hayeeshe maadaama cudurka lagu kala qaadi karo xitaa haddii qofku taabto meel uu horay u taabtay qof qaba waxaa suurtagal ah in sidaasi ku gaaray bin Zayed hadiiba ay jirto Mohammed bin Zayed ayaa la sheegay in la dhigay isbitaalka Cleveland ee Abu Dhabi halkaasi oo uu ku jiray maalmo ka hor inta aan laga saarin oo lagu celin madaxtooyada Imaaraadka Carabta kama aysan hadlin warka bin Zayed la xiriirinaya cudurka wayna adag tahay in la xaqiijiyo ilaa 2530 oo kiis oo cudurka corona ayaa lagu arkay dalalka bariga dhexe ee ka baxsan Iran waxaana badankood lagu waramayaa inuu kaga soo faafay dhanka dalka Iran oo ah dalka ugu daran ee cudurka uu ka jiro marka laga yimaado China Iran ayaa waxa uu cudurkan ku haleelay ku dhawaad 6000 halka ay u dhinteen in ka badan 100 qof inkastoo dad badan cudurkan ay u dhinteen haddana waxaa jira dad badan oo ka kacay gaar ahaan kuwa fayruska ku dhacay uusan darnayn dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen idaacadda Markabley caawa waa naga inta warka waxaan la socodsiinayay anigu Yaxya Cabdirisaaq Soofe tan intaan warkan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah